munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay taliyaha ciidamada Karabineeriyada Talyaaniga iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo lagu soo tababaray dalka Djibouti ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta tababarka ciidamada booliiska Soomaaliya ee General Kaahiye. Taliyaha ciidamada Karabineeriyada Talyaaniga iyo sidoo kale safiirka dawladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya iyadoo intii munaasabadu ay socotayna ay gaadaciyaan ay ku soo bandhigeen ciidamada tababarka loogu soo xiray maalintii shalay ee dalka Djibouti kuwaas oo isla saaka soo gaaray magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdikariin Daahir Saciid Saacid oo ugu horeyn halkaas ka hadlay ayaa u hambaliyay ciidamada tababarka loo soo xiray waxaana uu kula dardaarmay in amniga ay ka shaqeeyaan. Taliyuhu waxa kale oo intaas uu ku daray in la xisaabtami doono saraakiisha ciidanka booliiska qaarkood kuwaas oo uu sheegay in aanu waajibkooda u gudan si hufan. waxaan rajaynayaa isla xisaabtanku wax un maahan aniga laga bilaabo iyo inta iga hooseysaba qof walba mas'uuliyadda uu hayo iyo darajada uu wato inta waa lagu xisaabtamaya. ciidanka waxaan farayaa iyo saraakiisha habsanaanta xoogaa jirta in dib la isugu noqdo oo la hagaajiyo hawlgallada bisha Ramadaan ilaahay intii badnayd culeyskeeda oo soo dhaafiyay waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan ciidanka booliiska qaybta weyn ka qaateen inta hariyay buu taagan inta ka saxatana waa ka saxan doonaa inta shaqeysay inta shaqeynay ciidanka booliiska waa la kala yeelanaa maanta. Taliyaha ciidamada Karabineeriyada Talyaaniga General Di Corbo Di Armata oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Talyaanigu uu markasta muhiimad weyn u siinayo dalka Soomaaliya. Lo facciamo perché waxaanu sameynaa sababta waxay tahay l'Italia Talyaanigu in questo contesto internazionale guarda alla Somalia con grande attenzione. xiriirka caalamiga marka loo fiiriyo Talyaanigu wuxuu fiirinayaa Soomaaliya si gaar ah con antica amicizia. soo tixgelinaya saaxiibtinimada qadiimka ah. Axmed Saciid Axmed Telefishinka Cable magaalada Muqdisho.